mid ka mid ah hay'adaha Soomaaliyeed ee ka jira wadanka Mareykanka ayaa xirada qaxootiga ee loo yaqaan F2 waxay ka hirgelisay waxbarasho lagu caawinayo carruurta tabaaleysan ee halkaasi ku nool. Wariyahana Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Afrika ayaa warkan dhadhaab inooga soo diray. agabkan waxbarasho ee isugu jira buugaag iyo qalimaan ayaa waxaa carruurta tabaaleysan ee ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab soo gaarsiisay hay'adda Somali Bantu National Development Organization oo saldhigeedu yahay cariga Mareykanka xafiisna ku leh caasimadda Nairobi. carruurta buugaagta la soo gaarsiiyay ayaa isugu jiray carruur agoon ah iyo kuwa aan waalidkoodu aysan awoodin in ay ubadkooda u helaan qarashaad ay agabka waxbarasho ugu soo iibiyaan. Jaabir Nuurani Iftiin oo ah xoghayaha guud ee hay'adda SBND ee dalka Kenya oo TV-ga Jubbaland la hadlay ayaa waxa uu ka dhawaajiyay. Jibril Nuurani Iftiin ahna xoghayaha ama secretary-ga Somali Bantu National Development Organization xafiiskiisa Kenya. hay'adan ruuxaantii waxaan aasaasnay muddo sanad iyo 2 bilood ka hor. ujeedada oo aasaasan waxay tahay inaan bulshada Soomaaliyeed aan ka taageerno ama aan ku taakuleeno dhibaatooyinka heesta ama caqabadaha heesta sida dhanka waxbarashada, caafimaadka, maantii safarkii aan ku imaaday xiriirka qaxootiga ee Dhadhaab waxay ahayd anigoo la socda wafdi ka imaaday qurbaas waxaan u imaanay inaan soo gaarsiino howlo gurmada buugaag iyo qalimaan maantii waana noo suurto gashay waana ku guuleysanay waxaan gaarsiinay xiriirka qaxootiga Xagardheer iskuul ku yaala ifon sidoo kale iskuulaan wax ka gaarsiinay buugaagtaas dhagaxleena sidoo kale waan ku guuleysanay waan gaarsiinay buugaagtaas waxaan rajaynaynaa in dantii aan u keenay ama shacabkii bulshada aan u keenana ay bilow u noqoto waxna uu tari doonto. waqtigaas tiradood waxay ahaayeen 756 buugaag ahaayeen iyo 375 qalimaan. hamigeen waan sii rajaynaynaa insha Allah waan sii qaban doonaa bulshooyinka Soomaaliyeed dhan walba ay ka dhibaataysan waan ka caawin doonaa. waxaan ugu baaqayaa inay istaakulayaan qof walba qofkiisa kale ka taagdaran oo taakulay oo ka warhayo ayna la soo xiriiraan dhibaatooyin culus marka qabato shaqaalaha gurmadka noo jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab ama Soomaaliya kale ay la soo xiriiraan ka bacdina aan u gaarsiino gurmadkii ay u baahan ama loogu talagalay. dhanka kale carruurtii agabka waxbarasho la soo gaarsiiyay oo ka hadlay dareenkooda ayaa u mahad celiyay dhammaan ciddii ka qayb qaadatay. Bismillahirrahmanirrahim. magacayga Ibrahim Cabdi Yuusuf Allah waan ku faraxsanahay hay'adan oo anaga sambalkan soo gaarsiisay waan ku mahadsantahay maadaama ay wax noo qabatay inta ka badan ay noo qabataan rajaynayna. waxaan dhigtay isku practice waxaan rabaa inaan wax noo waxaan practice kanada waa idris waxaan tanaan waa qowduna imaad 10 qodobin ma beenaya sababta waxaan ku dhiganaysiin magacay waa leeyahay anoo ku nool F2 intii private wani odagtaan korsiyaal iyo buugtaal dadaal baan tinisa faantii private nani dhis korsiyaal maqam oo ka fadhiyaan intii private wani roobo koy meel shirkad ka daan male saas faraxsanahay maanta hay'adda oo STNDO law oo soo dalay buugaga ee qalimaan oo keentay maanta waxaan ka codsanayaa inay tan wax ka badan ay noo qabato sida aan ka rajaynayno. waxaan dhahlahay in oo barfadka waa naga helisay inay noo dhistaan ay noo hagaajiyaan wax kasta ay noo qabtaan ayaan u baahanahay. si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo ay hay'adani xeryaha qaxootiga Dhadhaab soo gaarsiiso deeq balse tilaabadan ayaa ah mid ay si weyn u soo dhaweeyeen carruurta wax ka barta goobaha waxbarasho ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Cabdirasaaq Afrika, telefishinka Jubbaland, xeryaha qaxootiga Dhadhaab.